السلام عليكم. صدن تلمان صدن صفo oo ay leeyihiin dadka indheer garadka dadka sida buuxda u fikira dadka lagu tilmaam in ay yihiin cabaaqira in ay aad u caqli badan yihiin haddii ay noqdaan sida caruurta soo korayso dhalinyarada qof weyn laakiin laga yaabo in uusan ogeyn in uu yahay qof indheer garad qof fikiraya in uu ilaahay siiyay awoodo uu uga duwan yahay dadka kale meeshan waxaan kugu soo gudbinayaa 22 daraaso oo lagu sameeyay dadka noocaas oo kala si haddii uu jiro canug aad dhashay adiga tusaale ahaan walaalka ka yar haddii tilmaamahan uu leeyahay asagoo yar wuxuu u baahan yahay in gacan la siiyo si uu u noqdo qof aad iyo aad meel sare gaaro maadaama ilaahay uu siiyay awoodo iyo qudraad ka duwan midda dadka kale qodobka koobaad dhinaca maskax ahaan wuxuu u muuqdaa ama waxaad u malaysaa sidii in uu shidan yahay oo kale maskaxdiisa in ay shidan tahay wuxuu si cajiib oo la tacaamulaa mawaaqifta dhaco ama aan ku tilmaan in uu feejigan yahay maskax ahaan in uusan daboolnayn wuxuuna ka sareeyaa dadka ay isku midka yihiin haddii ay yihiin arday haddii ay yihiin dad kale oo saaxiibo ay yihiin mar walba waxaad u arkaysaa in uu ka sareeyo dhinaca caqliga qodobka labaad wuxuu si degdeg u kasbadaa fahanka macluumada in haddii macluumo loo sheego uu isla markiiba fahmayo waxaan ula jeedaa in haddii uu wax baranayo ama wax loo sheego maadaama uu feejigan yahay uu isla markiiba qabanayo horeyna ka fahmayo sidoo kale wuxuu leeyahay qofka noocaas awood barashada shay cusub sida luuqadaha iyo culuum kala duwan inuu si degdeg u barto shay cusub oo horey u aqoonin saddex wuu feejigan yahay si cad si uu u ogaado waxa hareerihiisa ka socda wax ku hareeraysan wuu og yahay ragga cabaaqirada ama in dheer garadka taariikhda daad fiirso waxa lagu sheegaa in haddii qof noocaas oo kale la isku day in la dhagro in la dilo tilmaanta iyo qaabka uu qofka u dhaqaaqayo iyo saadaasha guud ee meesha ka socota ayuu horey ka fahmi kadibna uu ka siiban qodobka afaraad inta badan dadka indheer garadka cabaaqirada waxay jecel yihiin in ay keligood shaqeeyaan qofka indheer garadka inuu kaliya hawl qabto oo aad uma jecla inta badan inay dad isla shaqeeyaan isagoo isku qanciyo in hawlihiisa keligiis uu qabsado dadkaasna ayna soo faragelinin taasoo in uu jecel yahay in hawlaha uu keliga qabto isagoo leh hawl markaan keliga qabto si wanaagsan ayaan u qaban mana jecli in aan qaab fariiq ahaan ama koox ahaan aan hawl u wada qabanno 5 laga soo bilaabo markuu yaraa wuxuu jecel yahay in uu madax bannaanaado inuu gooni ahaado inuu naftiisa isku tiirsanaado inuu hooyay aabba waxba ka sugin inuu mar walba ku fikiro sidii u noqon lahaa qof madax bannaan oo hawlihiisa dhammaan asaga isku tiirsan dhinaca maadiga dhinaca walba inuu noqdo qof asaga si 100% iskugu tiirsan 6 wuxuu leeyahay fikir guud oo wanaagsan iyo saadaalinta umuuraha sida ay u socdaan in uu saadaaliyo tawaqquc ku sameeyo sida ay wax u dhici doonaan kumana qanco hawlaha yaryarka uu qabtay waxa laga yaabaa qof in hawl yar hadduu qabto uu isku qanciyo inuu wax weyn sameeyay inuu lugaha isa saarto laakiin kuwa noocan ka hadlayno waxay mar walba jecel yihiin in ay hawshay maanta qabteen mid ka sii sareysay ay sii qabtaan berri oo shay yar oo dadka kale laga yaabo inay arkaan wax weyn in uu ku farxin aad ugu qancin caadi uu arko shay dabiici uu rajeynayana wax ka sii weyn 7 mar walba wuxuu isweydiiyaa dadka weydiiyaa su'aalo mug leh adag su'aalo ay adagtay in laga jawaabo dadka dhan ay ku adagtay inay ka jawaabaan ayuu dadka weydiiyaa nambaraynta nambar u yeelida halkan ayaan ku joojinaynaa si toos ayaan qodobada u sheegaynaa qodobka xiga koritaanka degdega waxa laga yaabaa inaad taqaan canug ama wiil yar ama gabar yar oo ayagoo yar hadlo socdana si ka dhaqso badan ama ka degdegsan sida ay ku socdeen walaalaheed ama ciyaalka kale isku filka yihiin in isla markiiba canugaanu hadal barto isla markiina socod barto inta badanna waa tilmaamaha dadka cabaaqirada indheer garadka noqon doono in ay ayagoo yar isla markiiba hadlaan ayagoo yar socdaan qodobka kale mar walba wuxuu dareemaa in heerka fikirkiisa caqligiisa uu ka weyn yahay ka bisil yahay
dadka isku da'da yihiin in waxa laga yaabaa canugu uusan ku qanacsanaynba inuu la fariisto dadka ay isku da'da yihiin carruurta isku da'da yihiin oo uu raadiyo qof ka weyn oo la fariisto la sheekaysto asagoo leh ciyaalkan waxba kama faa'iidayo inta badan waxaa soo wajaho dareen ah murugo si markii loo yara fiiriyo xoogaa in uu murugoodo asagoo yacni ka fogaanshaha inta badan uu dadka ka yara fogaanayo in uu dareemo in uu yara murugaysan yahay kadibna uu isku qanciyo dadka in uu bal u imaado si uun u sii murugoonin uga fogaado murugadaas tilmaanta kale dadka inta badan indheergaradka cabaaqirada ma jeclo shaqada halka nidaam ku socota inuu intaasoo sana hal meel ka shaqeeyo waa mid aad u adag haddii aad aragta lacalla qof shaqooyin ka tagtagayo kolba shaqo aaday kale qofkaas waxaa laga yaabaa inuu yahay qof yacni tilmaamahan aan ka sheekaynayna qof leh ama qof uu yahay indheergarade uuna jeclayn inuu hal meel ku xirxirnaado sidaas darteed ha ku eedayn inuu yacni shaqo uusan ku istaagaynin oo mar walba meel aadayo xitaa haddaad fiiriso kuwa culimmada waaweyn ee dhinaca ikhtiracaadka wax sameeyey inta badan si markaad u akhriso taariikhdooda waxaad arkaysaa in ay ama midkan inuu jaamacad hebel ka tegey inuu midkan shaqo ka tegey in iskoolka ay ka tageen in kadibna yacni ayagoo aan hal meel ku ekaanaynin qodobka xiga dadka tilmaamahan leh haddii uu mid ayaga ka mid hawl qabanayo hawsha markuu dhammeeyo wuxuu dareemi in hawshan sidii loogu talagalay uusan u qabanin in hawshan ayna dhammaystirnayn in uu qaban karay ama u qaban karay si ka fiican inta badan dadka tilmaamahan aan ka sheekaynayna leh waa qodobka xigee waa dad inta badan aanan wax dulminin dad aanan dadka caayin kelmad adag dadka aanan u wajihin ama aanan dadka ku dhihin insaani ahaan iyo raxmadna quluubtooda ay ku jirto aadna ugu dadaala aadna u jecel qiyamka sare iyo akhlaaqda wanaagsan qodobka xiga inta badan dadka indheergaradka ee caqliga ka duwan caqli ahaan dadka kale ma jeclo in wax la faro waa yacni in hadda qof u imaado uu awaamir siiyo in wax loo sheego waxaa laga yaabaa annaga haddii aan aragno wiil yar ama gabar yar ama canug tilmaantaas leh in aan ku dhahno wuu dhaga adagya dadka ma ixtiraamayo hadalkooda ma qaadanayo inta badan yacni qofkan maskaxdiisa qaabka u samaysan tahay ayaa sidaas ilaahay ayaa sidaas u abuuray in uusan jeclayn in awaamir la siiyo in maanta dhan la dhaho waxaa samee waxaa soo qabo waxna kama ahan waa fitrad waa nidaamku ilaahay u abuuray qodobka xiga wuxuu jecel yahay inuu inta badan akhriyo taariikhda iyo qodobka xiga wuxuu jecel yahay inuu akhriyo taariikhda iyo siyarka culummada falaasifada dadka qiimaha taariikhda ku leh waa raaxadiisa waa wax uu jecel yahay markuu guriga joogo markuu nasanayo in kutub noocaas uu akhristo qofkaas hadduu yahay gabar hadduu yahay wiil qof weyn qof yar markuu yaraa ama yar yahay inta badan indhihiisu waxay u taagan yihiin dhinaca cirka wuxuu jecel yahay waxa la xiriiro culuumta fadaaga ama hawada sare inuu xidigahan maxay yihiin inuu su'aalo badan oo ku saabsan hawadaas sare uu isweydiiyo meerayaasha qorraxda waxyaabahaas uu si fiican oga hadlo in umuurahaas uu mar walba ku mashquulo isweydiiyo haddii uu qalad galo si qosol ay ku dhiiran tahay haddii uu qalad galo wuxuu qaladkiisa ku saxaa si iyo caqliyaysan in uu ka yara dhigoo kale majaajilo shay lagu yara qosloo kale si caqliyaysan in uu hadduu xitaa mowqif adag ku dhaco kale in uu si caqliyaysan isla markiiba oga baxo taasoo ay ka dhalanaysa in la yara qoslo inta badan wuxuu jecel yahay qofka noocan oo kale ah in uusan faraha la gelin umuuraha goonida ee dadka in uu su'aalo khaas ee weydiinin oo noloshooda hoose ku saabsan sidoo kale asagana ma jeclo in noloshiisa hoose la weydiiyo in umuurihiisa shakhsiga wax laga ogaado ma jeclo wuxuu dareemaa fashil iyo caajis marka aysan jirin shay uu qabanayo shay nashaad uu qabanayo xoogaa ma jecla inuu gacmaha isi saarto
wuxuu jecel yahay shay inuu qabto. sidoo kale haddii la yara dhaleeceeyo, haddii la eedeeyo, wuu ka yara murugooda, ma jeclo. dhinaca iskuulka ama jaamacadda ama meelaha waxbarasho, xilliyada qaar natiijadiisa ma fiicno, laakiin hadduu go'aansado inuu natiijo fiican keeno, wuxuu noqon dadka ugu horeeyo. wuxuu awoodaa inuu calaamadda uu rabo keeno, in natiijada ugu sarreysa uu keeno. laakiin waxaaba laga yaabaaba si in nidaamka waxbarasheed uuban ku qanacsanin, xiisasaas uu u haynin. laakiin haddii ay niyaddiisa ka soo goodo, uu keeni karo natiijada ugu wanaagsan. qodobka xiga, inta badan dadka cabaaqirada ama indheergaradka waxyaabo badan ay dadka kale oga sarreeyaan. sidoo kale waxaa jiro waxyaabo badan oo looga sarreeyo, sida in aysan ku fiicnayn dhinaca qoritaanka, in khadkooda markay wax qorayaan uusan qurxanayn, sababtoo ah inta badan tafkiirkooda waa dhinaca maskaxda, waxa dhinaca gacmaha laga qabanayo waa looga fiican yahay. taasoo ka dhigaysa ayaa la leeyahay in qoraalkooda markii ay wax qorayaan uusan wanaagsanin ama uusan qurxanayn fartooda. qodobka xiga wuxuu shabaha qodob aan ka soo yara sheekaynay oo in aysan jeclayn in wax la dulmiyo, in ayaga la dulmiyo, in hortooda dad kale lagu dulmiyo. taasoo keenaysa xilliyada qaar in uu sameeyo rad ficil adag haddii uu naftiisa difaacayo iyo haddii uu difaacayo qof hortiisa lagu dulmiyey. inta badan dhinaca xaaladda ijtimaaciga waxaa soo wajaha qofkan mashaakil sugnaan la'aana, sababtoo ah dadku ma jeclo qof ayaga ka yara duwan. qof markii meel la iskugu imaado gooni u yara fariisanayo ama wax akhrinayo, waxay jecel yihiin qof ayaga ka mide, haddii ay yihiin ciyaalka oo kale, qof la caytamo, la buuqo, waxa ay samaynayaan la sameeyo. taasoo haddii ay arkaan qof ka yara duwan ayaga, si gooni ah ayay iskaga yara leexin, oo qofkaas hoogaa cabqariga ama indheergaradka ama fikirkiisa ka duwan dadka kale, mashaakil dhinacaas ayaa soo wajihi. saaxiibadiisa aad ayay u yaryihiin, waa sifada xigtee. saaxiibadiisa aad ayay u yaryihiin, sababtoo ah si inuu asaga ku qanacsanayn ama uusan jeclayn inuu cid kasta la saaxiibo, iyo in dadku sidaan sheegnayba ay jecel yihiin qofka buuqa, sheekeeya, qoslo. inta badan qofkan maadaama uu tilmaamaas lahayn, wuxuu ka caban saaxiib yari. fikradda ay dadka kale ka haystaan waa mid ah in uu yahay qof la yaab leh, inuu yahay qof aanan la fahmaynin, ay u arkaan qof si kale ah oo isdhahaan qofkan muxuu yahay, suu u fikirayaa. waa tilmaamaha dadka cabaaqirada. inta badan su'aalo ayuu isweydiiyaa si joogto ah, waxaan maxay yihiin, sideen u xallin karaa arrinkan. afkaar khayaali xitaa laga yaab qaar inay yihiin inuu isweydiiyo. qodobka kale, waxaa laga yaabaa dadka in ay karaahiyeystaan, in aysan xoogaa jeclayn qofkan maadaama uu ka yara duwan yahay, dhaqankiisa xoogaa ka yara duwan yahay, maadaama dadku ay jeceliin in maanta dhan wax la hanto, in maantao dhan la qayliyo, asagana waxyaabahaas uu jeclayn waa la yara nici. ama inta badan dadka aan ka sheekaynayno noocaan ma hadal badno, waan wada ognahayna dadku inayna jeclayn qofka inta badan xoogaa aamusan. ma hubo in aan qodobo ku daray iyo inaan 2 ama 3 aan ka reebay, laakiin intaas waxaan qiyaasaya inay nagu filan tahay si aan u ogaano dadka noocaasoo kale ahee sida muggale u fikira cabaaqirada ama indheergaradka. mawduuceenan intaan ayuu ku egyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.